11,400 oo xujay ah oo loo adeegay rixladii ugu dambaysay inaan goobjoog ahaado aadaan ugu faraxsanahay. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo caawa wadacaadda ama sagootinta la sagootinayo xujaydii loo adeegay oo Soomaaliyeed oo ay sanadkan daala ay u hawlgashay inay u adeegto. aad baan ugu faraxsanahay. waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo howlwadeennadii khibradda ayagoo kaashanaya khibraddooda iyo waayo aragnimadooda iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta reer Daalo iskaashanaya sida sharafta badan oo ay ugu guulaysteen uguna khidmeeyeen xujayda wejigoodii koowaad. aad baan u ammaanayaa. waxaa jirtay mar la yidhi waxaa gebangaboobay wakhtigii xujayda la qaadi lahaa oo 12 cisho ayaa ka tagtay. marka anigu waxaan idhi khibradda aan u leeyahay ama ogaalka aan u leeyahay howlwadeennada reer Daalo iyo reer Daalo mas-uuliyiintoodaba arrintaas way ku guulaysanayaan. kalsooni badanna waan ku qabaa. haddana inaan arko galabtay oo aan goobjoogahay ayagoo soo gebangabeeyey 11,400 oo xujay ah oo loo adeegay rixladii ugu dambaysay inaan goobjoog ahaado aadaan ugu faraxsanahay. waana ugu hambalyaynayaa. waxaanan is leeyahay waxay mutaysan doontaa Daalo in lagu aamino shaqadan shaqo ka sii weyn haddii Ilaahay idmo ayay mutaysanaysaa oo shaqada qaranka ama aan idhaahdo shaqadii Somali Airline ay qaban jirtay in lagu aamino inay qabato. aad baan u soo dhowaynayaa waana rajaynayaa. madaxda qarankana waxaan leeyahay ku aamina. annagu waa ku aaminsannahay idinkuna ku aamina inay shaqadaa qaban karta. aad baan ugu kalsoonna insha Allah. waana hambalyaynayaa reer Daalo. caawa taariikhdu ku beegan tahay 20 bisha June 2023. waxaan halkan ka sagootinaynaa falaadkii ugu dambeeyay oo qaadi doona xujayda Soomaaliyeed oo u kictimaysa Bayt Xaramka. falaadkan maanta waxaa la socda wafdi ballaaran oo ka socda dawladda. wafdigaas uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliyeed Xamse Cabdi Barre. garoonka aadan cadde waxaa ka duulay 17 cisho la soo dhaafay. waxaa ka duulay 11,650 xujay ah. muddo 17 cisho ah in 11,650 ay garoonka ka duulaana waa dareemi kartaan hawsha baaxadda leh oo u baahan tahay. ilaahay ka sokow hawshaas in ay guulaysato laguna guulaysto waxaa mahaddeeda iska leh dhammaan hay'adaha kala duwan ee ka howlgala garoonka aadan cabdulle. hay'adahaas way ugu horeeyaan hay'adaha amniga garoonka iyo hay'adaha maamulka garoonka. waxaan si khaas ah ugu mahad celinayaa shirkadda Daalo oo aad iyo aad xil isaga saartay dadaal dheeraadan u bixisay inay xujaydaas sida ugu macquulsan uguna hufan ay u qaado una geyso meeshii ay u socdeen oo xaramka beedka xaramka. waxaan ilaahay uga baryayaa dhammaan xujayda Soomaaliyeed ee tagtay beedka xaramka inuu ilaahay acmaashooda ka aqbalo. waxaan ka codsanayaa inay dalka iyo dadka